kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dilkiinba meel kasta oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo la sheegay inuu dejiyay naqshad cusub oo dib u doorashadiisa ah sidoo kale warka waxaad kaga bogan doontaan Laftagreen oo burburiyay qorshihiisa Ciidani Axmed Madoobe iyo Cali Guudlaawe damaca cusub ee qoorqoor ee xilligan oo la ogaaday sidoo kale warka waxaan idinku haynaa ra'iisul wasaare Roble oo odayaasha Banaadir ah la yeeshay kulan xasaasi ah qodobadaas iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilownay madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu dejiyay naqshad cusub oo dib u doorashadiisa ah iyadoo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ay si dardar leh kaga socoto gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho ayaa haddana waxaa jira siyaasiyiin iyo xubno xildoon ah oo ay xilligan xaalad adag ay soo wajahday madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saaxiibadiisa ayaa wali waxa ay calankooda la soo sheegayaa inuu sareeyo xilligan ay rumaysan yihiin isla markaana ay shaaca ka qaadeen in guushu ay soo dhowdahay inta badan kuraasta golaha shacabka ee la doortay ayaa u muuqda mid markaasi looga gacan sareeyo Farmaajo balse waxa uu ku xisaabtami doonaa kuraasta taala Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabelle sidoo kale kuraasta qaar ee Jubbaland siiba gobolka Gado iyo Puntland kuraasta gobolka Bari ayuu dhowr kursi ku tashanaya in markaasi codadkooda uu heli karo sida la tilmaamayo isuristaaga lagu sameeyo Mahad Salaad Ibrahim Isaaq Yarow Cabdiraxmaan Odowa iyo shakhsiyaad kale oo kuraastooda dib markaasi uga soo muuqan doonin ayaa bedelkooda nabad iyo nolol dad gaar ah xilligan u xiran doonta sida la tilmaamayo Hirshabelle kuraas dhowr ayaa la sii calaamadeeyay in Farmaajo uu ku soo bixi doono codadkoodana xilligan uu ku xisaabtami karo waxaana uu waqti badan uu ku bixinayaa sida ay la wareedi kala duwan ay sheegayaan in saaxiibadiisa xasaanad markaas ugu sameeyo xildhibaannimo xilligan uu ku howlan yahay arrimahaasi dooda ugu weyn ayaa xilligan waxa ay tahay in Fahad Yaasiin kursiga beledweyne yaala xilligan la isku hayo in Jowhar loo soo wareejiyo haddii suuqa uu sii taagnaadana magaalada caasimadu ah gobolka Hiiraan xilligan laga cabsi qabo in carqalad ay ka dhacdo culayska xilligan sharxida qoorqoor iyo Cali Guudlaawe ee madaxtinimada Soomaaliya ayaa laga yaabaa in markaasi dabarjibin xoog leh ay ku noqon doonto mucaaradka madaxweynaha doonaya aan codadkooda ay ku taageeri karaan Farmaajo sida ay la wareedi kala duwan ay qabaan doorashada Soomaaliya ayaa xilligan xaalado kala duwan soo mareysa iyadoona waqtigii loogu talagalay doorashada dalka inay ka dhacdo muddo ku dhow sanad ah dib ay kaga sii dhacday waxaana haatan la doortay xubno badan oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyadoona loo jaangooyay 25ka bisha soo aadan ee Febraayo in lagu soo gabagabeeyo doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya deegaanada qaar ee dowlad goboleedyada dalka xilligan ilaa hal deegaan doorasho ayaa laga doortay balse maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu shaaciyay in deegaanka labaad doorashooyinka ay qabanayaan toddobaadka soo socda dhanka kale Laftagreen ayaa burburiyay qorshihiisa Ciidani Axmed Madoobe iyo Cali Guudlaawe hogaamiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen waxaa weli ka go'an sida xeelleerayaal badan ay qabaan inuu ka shaqeeyo dariiq walba oo madaxweyne Farmaajo ugu soo laaban karo villa Soomaaliya guddiga doorashada Koonfur Galbeed waxa ay shaaciyeen oo ay soo dejiyeen 13 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee lagu dooran doono magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose Baraawe waa caasimadda rasmiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasi oo hadda si ku meel gaar ah ugu shaqeynaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay talaabadan ayaa soo afjartay aragti ay markaasi kor u hayeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe weli dhibaato ayaa ka haysata gobolka Gado mana rabo inuu Garbahaar ay ku qabto doorasho hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani culays badan ayaa kaga yimid dhanka magaalada Boosaaso halkaasi oo uu ka walaacsan yahay inuusan sida uu doono ka yeelan karin 16 kursi ee taala halka hogaamiyaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe weli loo diidan yahay inuu tago magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo ay taalo 25 kursi oo ka tirsan kuraasta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaa la sheegay in saddexdaas hogaamiye ay qabeen aragti ah in marka ay soo dhamaadaan doorashooyinka ka socda xarumaha maamul goboleedyada in la qabto hal shir oo golaha wadatashiga qaran kadibna la qaato go'aan hal deegaan doorasho oo laga laabto kuraastii loo calaamadeeyay magaalooyinka Boosaaso, Gaalkacyo, Beledweyne, Garbahaare iyo Baraawe
inta aan taasi la gaarin Cabdicasiis Laftagreen madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa uu ceel dheer ku riday rajadaas waxa uuna soo dedejiyay oo uu soo diyaarsaday kuraastii taalay magaalada Baraawe. Hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo saaxiibkiisa hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Laftagreen iyagu marnaba ma aysan keenin golaha wadatashiga qaran dood ku saabsan hal deegaan doorasho, waxayna ahaayeen raggii diidnaa in laga laabto qodobada labada deegaan doorasho ee markaasi ay xil kal hor lagu heshiiyey. Nidaamka madaxweyne Farmaajo oo loo diiwaan gelin doono hannaan doorasheedkan waxa uu beri sheegan doonaa in markaasi doorashada dalka gaarsiiyay 101 erga ah iyo weliba 2 magaalo, balse weli waa doorasho dadban iyo mid boobkeeda cad yahay sida ay qabaan siyaasiyiin badan. Hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu hadda ku qasban yahay inuu la tacaalo xaaladda Boosaaso maadaama uu hirgalay kiiskii 2 deegaan doorashaalka Axmed Madoobe uu isna laqi doono qaraarka 16 kursi ee Garbaari oo dhanka Farmaajo aadi doona. Cali Guudlaawe waxa uu hadda dhankiisa ku qasban yahay in arrinta beledweyne uu raadiyo xal markaasi uu ku fulin karo, maadaama aan laga baaqsan karin in doorashada ay ka dhacdo magaaladaasi, inkastoo kooxda Farmaajo lagu eedeynayo in markaasi si weyn gacanta ay ugula jiraan arrimaha magaalada beledweyne. Dhanka kale, damaca cusub ee Qorqor ee xilligan ayaa la ogaaday. Waxaa sii xoogeysanaya wararka la xiriira damaca siyaasadeed ee heer federaal ee hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Ninkan oo siyaasiyiin badan ay damac ay ka qabeen inuu dhisi doono sanadkan dan amaba qabiil midi ay noqotaba ayaa hadda la soo tabinaya in isagu uu tolanayo shaati u gaara. Hogaamiyahan oo madax u ah koox siyaasadeedka loo yaqaan waaye arag oo qaar badan oo ka mid ah ay kuraas soo heleen ayaa la soo wariyay in markaasi heshiis daneed uu la gaaray shakhsiyaad badan oo kuraas ka soo qaatay Galmudug. Maamulkan ka dhisan bartamaha Soomaaliya waxa uu maamulaa 8 senatar iyo 37 xubnood oo golaha shacabka ah. Sanadkan kursi ujeeda la'aan ah ma bixin Qorqor, haddana ma bixin doona ayuu yiri xubin sare oo ka mid ah saaxiibada siyaasadeed ee Qorqor. Ilaa iyo hadda maamulka Galmudug waxa uu qabtay doorashada 8 senatar oo mid lagu laaban doono iyo weliba 8 xubnood oo golaha shacabka ah, inkastoo ay jiraan musharaxiin xilligan dad badan ay qabaan in doorashooyinkaasi boob ay ugu soo baxeen. Xubno ka tirsan kooxda waaye arag ayaa waxa ay sheegeen in markaasi si aan leexleexad lahayn in Qorqor damac uu xilligan uu ku jiro. Dhanka kale, Ra'iisul Wasaare Roble odayaasha Banaadir ayuu la yeeshay kulan xasaasi ah. Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa odayaasha dhaqanka iyo guddiga doorashada beelaha Banaadir la yeeshay kulan ku saabsan hufnaanta doorashada kuraasta Banaadir ah. Waxaana dhawaan lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu doorto kuraasta Banaadir xilli ay jirto cabashada beelaha qaar. Wasiirka koowaad ee xukuumadda ayaa cod dheer ku sheegay in doorashada ay noqon doonto mid daahfuran. Odayaasha maanta halkaan isugu yimid dhaqanka Banaadir warkiina waa dhageystay. maantay maalin aan go'aan qaadanayna ma ahan, qalbigiina horta khayr u sheega inaan idin dhageysto ayay maanta ahayd. wax badan aan ka fahamnay. guddiga fiidka iyo xalinta khilaafaadka oo halkan ila joogan waxaa markhaati uga dhigay ilaahay ka soke inay dhagahooda ku dhageystaan. maantay sidaad u hadlayseen iyo qaarkiin waxyaabaha aad diidan tihiin waan ka dheregsanahay dhammaanteen. marka qalbigiina khayr u sheega. waxaan isku dayeynaa, waan ogahay dhibab badan ayaa lagala kulmi doonaa sida wax laydinkugu qaybin doono. 49 gambar soo maahan ya 49 gambar 5 kursi u qaybiya waa shanigeeday wadataa. kolleeto bini aadan aan nahay, siduu ilaahay wax noo tuso wada tashi dadaal ayaan ku bixinaynaa hadduu alle idmo, annagoo gacan siinayno guddiga idinka mas-uulka iyo idinka ah ee siid ay hogaaminayso Banaadir ay hogaaminayso Sacdiya Boolaay. waxaana la shaqeynaya aan rabaa inaan idin sheego guddiga fiid guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka mid baan u magacaabayaa, iyo guddiga xalinta khilaafaadka guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka sida aan isugu afgaranno, iyo tiim xafiiskii ka mid ah oo korjoogto ah oon faragelin karin. waxaan rabaa sida ugu hufan inaan 3daas group oo ay anigana aan kontroolayo aan arrintaas u guda galno. markaan aragno 2dan beri 3dan beri wixii ka soo baxa geedka orod ku kortid maxaa la yiri orodaa looga soo degaa. orod kuma korayno, degdega dhaafa. 5 kursi waaye,
waqti fiican aan qaadanaynaa isbuuc 2 isbuuc tartiibteen hadduu Allah subxaanahu wa tacaala sacdiin waa u sheegaya la degdegin meel loo degdegayo ma lahan go'aanka ugu dambeeyo oo warbixinta markay ii keenaan markaasaan ilaahay go'aankaas aan isleenahay waa kan ugu dhow aan qaadan karno ayaan ilaahay u tabakalaynaa soomaan tabakalkaasaan ku soconaynaa aniga shaksi ma wati waa idin sheegaya kursina idinkama rabi in laydan dulmiyana ma rabi sidoo ilaahay igu ogyahay ayaan qalbigay idinkaga sheegaya waxaan leeyahay dadka banaadiriga meel kasta ay joogaan gudo iyo dibad walwalka iska daaya waa dadaalaynaa xaqaha u arkina qof jeclaysi hebel hadduusan kursiga helin cadaalad daraa dhacday yaa loo arkin hebel hadduu helana cadaaladaa dhacday yaa loo arkin waxaan isku dayaynaa inaan alla tabakalno iyo qaybiskaas siday saaxiibaday sheegeen 49 gambar hadday ahaan lahayd wareeg a ku heshiisaan hadday ahaan lahayd isla kuwii hore wax qabiilaadka u gooni ah aan ku xaq dhowrayno oo aan ku tixgelinayno ay qof kastana waxaad ogaataan inuu tartamayo oo markaas loo garto beeshaas ama gambarkaas oo loo arko qof kasta ama hore ha u joogay ama mid cusub ha noqdo waa la tartamayaa meesha marka cilada ka jirto waxaa waaye shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan ay tahay kursigaas waxaa mas'uul ka ah ninka beeshaas ugu odaysan ama suldaan ama malaakh ama oday dhaqameedka ugu weyn ayaa mas'uul ka ah waxaa ku xiga 2 oday dhaqameed waxay ku soo darayaan gudiyada siiba gudiga siid 2 xubnaha beeshaas ee bulshada rayidka ah oo isla beeshaas kursigaas ku tartamayso waa loo qaybinayaa 5taas waa loo qaybinayaa dadka tartamayana waxaa la rabaa qof kasta inuu cadaaladaas iska dhaxarko oo 5taas oday ay iska dhaxarkaan 3daas oday iyo 2da bulshada rayidka ay iska dhaxarkaan marka intaas la sameeyo 5taas qofood ayaa waxay aan tababar la siinayaa fiidka iyo xalinta khilaafaadka iyo siidka siinaya tababarkaasna wuxuu ku saabsan yahay siday kursigaas 101giisa ergada ah loo qaybin lahaa si xaq loogu qaybin lahaa si sharci loogu qaybin lahaa si nidaamsan loogu qaybin lahaa markaas ay foomkaas buuxiyaan ergadaas gudiga ay soo magacaabaan 101da ah tababar la siinayaa maalintaasna waxaa la shaacinayaa kursigaas musharaxiintiis kursigaas u tartamayso maalintaas ay soo dalbanayaan hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo markaas waqtiga loo qabanaya gudiga siid oo Sacdiye Boolay hogaaminaysa oo qabanaya tartan maalintaas tartan la galaya ka hor shuruudo ayaa jiro odayaasha la soo qoray oo 3da oday caaqilka ugu sareeyay iyo 2da oday ku xigto iyo bulshada rayidka marka la soo dejiyo waa la soo dejinayaa xalaal maxaa la yiri maal cadaal qada darbigaas lagu soo dejinayaa Sacdiye Boolay waxay ku soo dejinaysaa meediyaha kasoo ku soo dejinaysaa maalintaas 2 maalin 3 maalin oo dhegsanaanaya qofkii ka cabanayo ka qaylinayo waqtiga isaga dhumin xafiiskayga waxaa jooga gudiga xalinta khilaafaadka siid waxaa jooga fiid oo markaas la shaqeynayo erga joogto wali ergada waa idin weyneeyo dawlad goboleedyada xalinta khilaafaadka iyo fiid waxay u diraan qof oo tiimka hoose ah aniga waxaan idin xil saarayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka oo kiiskiina waa culus yahay si ay ish ugu hayaan markaas odayaashaas 3da ah iyo 2da bulshada reerka la soo dejiyo markaas cid cabasho qabto hal la joojiyo la leeyahay qofka qaldan ama boob ku socdo ama beesha aan u dhalan oo boob ku socdana waa laga saaraya marka wixiina waxay noqonayaan wax maalin cad la qalay intaas idinka ballan qaaday hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo daahitaankana degdegsiyo way ha u fahmina inaan iska hubinaan rabnaa marka in aan ku degdegno aqoon darre ya cadaway waxay u tahay xaq Soomaan aqoon darrada marka intaan ku dhici lahayn xaq darradaas waxaa idin leeyahay qalbigiina khayr u sheega qof kasta soo dadaal tartan u soo diyaar garow xaqaagana waa helaysaa hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo guudaan daawadayaal waxaa intaasi kusoo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen Garmaal TV tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.